xildhibaanada cusub ee loo doortay golaha deegaanka degmada Oodweyne ee ka soo baxay xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo galabta galinkii dambe shirta xaafadeed ku qabtay gudaha magaalada Oodweyne ayaa sheegay in maalinta Isniinta uu loo qoondeeyay maalinta kalfadhigooda koobaad ay maayir iyo ku xigeen u dooran doonaan Maxamed Cabdi Cali Fooxali iyo Maxamed Cabdilaahi Yaasiin Faifle xildhibaanadaasi oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Daadmareed iyo xisbul xaakimka aanu ka tirsanayn inaanu annagoo labadii xisbul xaakimkii iyo xisbul mucaaradkiiba isugu jirra oonu halkan ku dhannahay inaanu maayirkii iyo maayirka xigeenkiiba u doorannay maxamed cabdi cali Fooxali iyo maxamed cabdilaahi yaasiin Faifle dhammaan waxaan salaamayaa bulshooyinka gobolka Daadmareed dadkii aad noo soo doortay dhammaan waxaan salaamayaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo horeeyay mudane Muuse Biixi Cabdi halkan waxaan ku shaacinaynaa galabta inaan u doorannay maayirkii Maxamed Cabdi Fooxali iyo Maxamed Cabdilaahi Yaasiin Faifle oo maayir ku xigeenah waxaan leenahay ummadda reer Oodweyne sidaa ku ogaadaan ujeedada halkan aanu isugu nimi waxa weeyaan anagoo labada xisbi ka kooban inaanu shaacino maanta maayirkii iyo maayir ku xigeenkii hogaamin lahaa gobolka Daadmareed runtii maanta degmadeenu waxay u baahan tahay wax cid hogaamisa uma baahna cid dib ula hadha oo mucaarida waxay u baahan tahay cid muxaafida oo ku xiran dawladda oo horumarka hore u sii wada oo inta aynu joogno hore u sii qaada message-ka maanta aan u dirayaa dadweynaha Daadmareed waxa weeyaan war maanta yeynaan dib u noqonin oo aynu hore u kacno oo xisbiga muxaafidka aynu wax la qabsano oo gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeenka aan idin soo dooray labaduba waxa weyn xisbiga muxaafidka ha anigu waxaan ka soo baxay xisbiga wadani runtii waxaan u daneeyay gobolkayga sababtaan uga mid noqday ee aan u galay waxa weeyaan inaan danta gobolka fur yeelo maanta waxa loo soo doortay labada golaha deegaanka hogaamin doona maayir iyo maayir ku xigeen Maxamed Cabdi Fooxali iyo Faifle oo labaduba hal doorkii gobolka yiin golaha deegaanka saa kula shaqeynayaan alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta mar haddii wadadii horumarka cagta saaray xukuumaddana waa la shaqeynaynaa Oodweynena uma baahna 10 sano ayuu mucaarad ahaa maanta mucaarad ma baahna waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha soo doortay sharafta leh karaamada leh nagu wareejiyay masiirkoodii inaan ku hogaamino degmada Daadmareed iyo nawaaxigeeda waxa kale oo mahadcelinayaa qolada igala tirsan golaha deegaanka tiimkaygan ka midka ah ee ka soo kala baxay labada xusbi xaakimka iyo xusbiga mucaaradka wadani ee gartay in aanu ku hogaamino golaha deegaanka aan noqdaan maayir ku xigeen saaxiibkay Maxamed Fooxali uu noqdo maayirka matali doona 5 sano soo socda haddii alla yiraaho insha Allah bismillaahi kariim waxaan rajaynaynaa kuwii sharaf iyo karaamo iyo wanaag iyo reereyn u soo duwa gobolkan u soo jiida dawladana saa kula shaqeeya wax wacan dadka tari doona insha Allah bismillaahi kariim aad iyo aad baa u mahadsantihiin xildhibaanada golaha deegaanka halkan ila taagan waxaan kala leeyahay kuwa kale ee dibadda naga wareegaya ee saaxiibadaya ee walaaladayada in iyaguna ay noo iman doonaan insha Allah maalinta Isniinta oo aan meel ka wada jaan qaadi doono waxaan idinka mahadnaqayaa sida ay igu wareejiseen haddii Allahu ka dhigayo inaynu gacmaha isku qabsanno inaynu ku walaalowno inaynu danta horumarka bulshadeena aynu ka shaqeyno oo aynu ka saarno danta shakhsiga aynu ka saarno taasaan haddii alla ka dhigayo ilaahay inooga baryayaa ilaahay ha inoo sakhiro waa Maxamed Axmed Cawil Maxamed Joker telefishinka caalamiga Zaab magaalada Oodweyne.